أجول بلادا وألتقي عبادا ضاقت بهم الأرض، لتسمح لي الفرص أن أحدث تغييرا في حياتهم، أسعدهم وأسعد معهم. inkastay dalalka qaar burburiga gaajo ku jiraan, inkastay qaar kalena faqriga dhib ku jiraan, inkastay dadka bar ka mid ah aanay waxba ogoleen dadkooda kale, inkastay istaakulantiis gacan qabashadu inagu yar tahay, haddana waxaa jira dad sidaas oo dhan ka duwan, dad hadaf ka dhigtay caawinta walaalahood, istaakulantiis gacan qabashada dhaqan ka dhigtay. ku darso wax kastay sameynayaan uma sameynayaan si ay dad magac uga helaan, maamuus uga helaan, weji uga helaan, iyo wixii kale la mid ah ay doonayaan inay qofka ka helaan. laakiinse waxaasoo dhan waxay u sameynayaan si aanay ummadooda badhnow dhargin badhnow gaajo, iyo weliba ajar ay ilaahay ka doonayaan inuu ku abaalmariyo. waxa wanaagsan inaad qof ku aragto ood kaga dayataa waa muhiim, maxaa yeelay wixii wanaagsan uu ku wanaajinayaa, wixii xunna uu ku xumaynayaa. waa wiil dhallinyaro ah oon ogoleen inay kamaradu wejigiisa qabato, had iyo jeerna u taagan una heelan gacan qabashada walaalihiisa muslimiinta ee masaakiinta ah. mawduucina maanta waxa uu ku saabsan yahay daawade qays, wiil qof la mid ah yar tahay in la arko. waxyar daawade, haddii aad channelka cusubtay subscribe saar si muuqaal kastan soo gelina uu kuu soo gaaro si dhaqso ah. haddii aad wax ka faa'iideen la wadaag saaxiibka si uu isaguna wax uga faa'iido. mahadsanid. marka hore haynu isla ogaano waa kuma qays. qays waa wiil imaaraati ah, yacni imaaraad ku dhashay. waa wiil go'aansaday inuu caawiyo dadkiisa islaamka ah meel kastay joogaan. waxaa la sheegaa lacagta uu dadka siiyo sanadkii in aanay ka yaran $1 milyan, maxaa yeelay mar walba wax la arkay isagoo dadka masaakiinta caawinaya. iminka waxaad isweydiinaysaa waxaasoo lacagaha xaggee uu ka keenay. waxay u badan tahay inay wada shaqayni ka dhexayso hay-adda hilaalul axmar ee imaaraatiga ah ama bisha cas ee imaaraatiga ah, halkaasina u dhowdahay inuu lacagtan ka keenay. qays waxaa keliya la arkaa isagoo sii jeeda marna kamardumay qaban wejigiisa. shandad jaakeed koofiyad leh ay mar walba dadka ku arkaan markuu hawshiisan caawimaad ku jiro. waxaa la sheegaa qays inuu caawiyo sanadkiina soo dhaafay 10 kun oo qoys oo weliba ku kala nool waddamo kala duwan sida urdun, masar, ciraaq, suuriya iyo weliba waddamo kale, xitaa dhulalka soomaalida u yimi, weliba hargeysa. wax kasta uu qofku u socdo dariiqa khayrka ilaahayna ma ilaawo. waxa uu waddan uga safrayaa uu waddan kale u tegayaa si uu qof baahan u caawiyo. mar kastay badato caawinta dadka tabaalaysan waa mar kastay bulshada islaamku heer gaadhayso. haddii ay madaxdii dalka maamulaysa ay xumaatay oo aanay dadkooda waxba u quudhayn, hays odhan ummaddani weligeed horumar gaari mayso. laakiin haddii ay shacabku is-caawiyaan, istaakuleeyaan, kooda qaniga uu caawiyo kooda faqiirka ah, waxaa suuragal noqonaysa in la waayo qof faqiir ah, yacni dadku faqriga ayay ka wada bixi lahaayeen. qays waxaa laga sameeyey musalsal loo bixiyey qalbi idma'an oo carabaha aad looga daawado. musalsalkan qaybtiisii ugu horreysay waxaa la soo daayey 2018. isla sanadkaa dadku aad bay uga heleen, aadna way u daawan jireen. haddana qayb labaad baa loo sameeyey oo la soo daayey 2019. musalsalkani waxa uu wadaa fariin aad u muhiim ah, keliya kuma socoto carabta laakiin waxay ku socotaa ummadda islaamka oo dhan. waxaana wayna tusayaa sida wiilkaa dhallinyarta uu u caawiyey dadkiisa islaamka ah. way jiraan dhallinyar badan oo doonaya inay saa ku daydaan, yacni ay dhankooda dadkooda wax ka taraan, waana wax lagu farxo. sidaasay tahay innaga waxayna nooga baahan yahay in intaa iyo inka badan la nimaadno, maxaa yeelay waxaynugu dhex nool dad badan oo tabaalaysan. iskaga dayashada khayrkuna waa muhiim. ma wacna inaad dadka wax u tarto si aad magac u yeelato, mana wacna inaad u caawiso si dadku ay kuu bartaan, yacni aad caan u noqoto. waana sida ka jirta dhulkeena iminka. qofkii ama hay-addii ama wasaaraddii wax bixinaysaa ha noqoto inay raashin u qaybiyaan dad tabaalaysan, waxa ugu horreeya ka fikirayaan tiifigeeban u yeedhanaa, yacni yaa waxay naga duubayeen markaan dadka wax siinayno. haa, way wanaagsan tahay haddii ay u duubayaan inay dadka kale kaga daydaan, laakiinse waxa badan inta waxaa u sameeyaan sisay bulshada dhexdeeda magac ugu yeeshaan, loo maamuuso markay meelaha marayaan. sida uu nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, sadaqada jahriga ah, yacni ta muuqata, waxa ka khayr badan sadaqada qarsoon. markaa daawade waxa wanaagsan qofku wixii uu la baxayo in aanu dadka waxba kaga doonin oo ilaahay wax kaga doono.